adduunka waxaa ugu daran nimankan la dhaho ma liibaane lagu liibaanay yani waa niman oo jooga waddanka oo dhan wey Soomaaliya dhan bay joogaan dhinac ka dhinac laakiinse waa kuwaas nimankaas ma liibaane lagu liibaanay haddii maqashid waa kuwaas marka halkaas waxaa weeye isbuuci hore waxa weeye dabaaldeg waxaa dhiganaya Somaliland marka nimankaas wariyaha wata badanaa waxaa loo isticmaalaa in qaranduun lagu sameeyo waddankay in oo qabliyaasha oo jagaraadiska ama rabaan inay jaga qaataan ama rabaan inay xoolo dawladda boobaan oo kale waa nimankaas bay isticmaalaan marka nimankan waxa weeye badanaa wax u adeegaan nimanka aqli badan laakiinse nimankaas halkaas socdaa u jeedaan waxa weeye qiimo waxay leeyihiin intay qoryaha sitaan oo dagaalantamayaan markii ay curyaamaan ama dhaawac ku dhacdo ama ay shaqo fariis ku dhacdo qiimo ma laha oo markaa qashinkii baa lagu darayaa sidii warqad waa aragtay oo aftirtirka ah oo afka la iska tirtiro ama tan musqush taal oo daba tirtirka ah waxa weeye markii la isticmaalo waa qashinka lagu daraa soo marka warqad la isticmaalay qiimo ma laha marka nimankan oo halkan ugu jeedaan ma liibaane lagu liibaanay waxa markay dhaawacmaan waxa weeye waa la iska tuuraa banaanka tii iska tuura baa cidla loogu tagaa taas waxa weeye meel walba ka dhacdaa hadda fiirsada nin halkaana baraa bulsha maalin hore ka qaylinayay laakiinse dhibkii jirta waxa weeye kuwa kale kuma waa aragnimo qaadanayaan waxa weeye nimanka aqli badan oo dantooda wata baa weli si adeegayaan bal fiirsada waa ninkan dhaawaca ah ee halkan idinka muuqday kliibka hadda idiin soo duubay waxa weeye Saleebaan Saalax Faarax wuxuu ku dhaawacmay dagaalkii Laascaanood wuxuu ahaa raggii Laascaanood gudaheeda lagu qabsaday ku dhaawacmay lagaga cararay ayuu ka mid ahaa ninka waxa qaaday adigu niman dhul bahanta ah oo adigu qaraabo leeyahay baa gacanta ku dhigay oo qaaday oo wax magaratadii ka qaaday wala wax magarata adaa ah sababtoo dac garanaysid abalkaas idan ag fadhiya waa cishan lahaydeen dambena ilaahay wuxuu bixiyay oo ogaaday boqor buur madow sida la ajigeed saddex nin bay ahaayeen ninkii kale isaguna waa la mid oo waa wujifa oo waa baarleed ninka xaaladiisa xunta kibir baalkaas dhigay iyo daro dad kale guryaha la imaaday rabsho laakiin marka maanta xaqi baa ka soo baxay xuriyaan bay noqdeen halkaas bay yaalaan laakiinse kuwa kale ma kuwa ay aragnimo qaadanayaan kuwa halkaa maraya oo lagu soo aqal badiyay waxa weeye nasiib daro waxa weeye maya kuma waa aragnimo qaadanayaan shaydaankan halkaas ka towtowle bay naftooda u hurayaan marka nin kale bay u shaqaynayaan nin kale bay adeegayaan laakiinse dantood ma garanayaan ninkaas waxa weeye iyo waxa la midkaa kulli waa milyaneer wey nolol fiican bay ku nool yihiin laakiinse kuwaana u jeedaan waxa weeye waa doqomo wey laga soo aqalbadiyo oo la adeegsanayo markii la soo gudbiyay dalka la soo geliyay dawladdu way qaaday adigu in muddo doora bay gacanta ku hayeen Itoobiya la geeyay wax ka qabadkiisii adigu Itoobiya dhaqaatiirta Itoobiya waxay wax ka qabasho way leeyihiin laakiinse dhaqaalihii ayaa halkaa dhigay waa la soo celiyay dhaqaalaha loo raadiyaa la yiri adigu dhaqaalida dawladii wax daryeel oo ay ninkii u fidisay oo dambe ma jirin isbitaal xoog leeyo burcaada la iska dhigay halkaas ninkaasi uu ku sii darxumooday mawjidaan ma liibaane lagu liibaanay intuu xoog leeyahay oo qori qaadi karo dagaalantami karo uu qiimo leeyahay markii uu dhaawacmo uu dagaalantami karin qiimo ma laha banaanka la soo tuuray si qashin camal kale ma aragteen waxaan codsanaynaa dhammaan habar jeclo weyn waxaan habar jeclo beesha habar jeclo inay ninka ay nala caawiyaan oo ay hadii ay bakuuro yahay ay wax ka qabtaan gudo iyo dibadba siiba waxaan codsigayagaasi ku aadan yahay gudida habar jeclo ee qurba joogta ayuu ku aadan yahay khaasatan Faarax Biciide ayuu ku sii wajahayaa wuxuu ku wajahay oo kale beesha bahood ee qurba joogta
in si degdega ninkaa wax looga qabto. marka xaqiiqda kale halkaas ka soo baxda waxa weeye waxa dowlad ku sheegaa oo maalintii loo dabaaldegayay waa been iyo khuraafaad wey waxba kama jirto hadday dowlad tahay ninka halkaa yaallo ag yaallo oo curyaanka may caawiyaan marka waxa weeye waxaas halkaas ugu jeedo dowlad ku sheeg ah waa been iyo khuraafaad wey dadka waxa weeye nasiib daro waxa weeye dadkii waxa weeye dad caqli leh ma dad laga soo caqli badi wey anigu waxaan ahay askari ka tirsan Somaliland ciidanka qaranka miskiin waxa weeye beentii dowlad baa haysanaa waxa dowlad lagu sheegay buu weli rumaysan yahay oo waxa weeye miskiinkan caqliga baa laga dhaqay waxaan ka tirsan guutada 14aad ka mid ah qaybta 12aad sidaa darteed waxaan ahay anigu dhaawac baan ahay waxaan ku dhaawacmay dagaalkii Laascaanood 25 bishii labaad ayaan u dhaawacmay haddii aan dhaawacmayna waxay qaatay cadowgii dadkan waxa weeye xaqii baa ka soo baxay eedabdaro baalkaas dhigta iyo qabyaalad marka xaqii baa ka soo baxay marka waxa weeye ma liibaano lagu liibaan wakaas dowladdii qarankii aan u dhaawacmay cidlo dhigay meel allaale iyo meel adduunyaale meel ay wax iga tareen qarankaas weli alaan waa sugayaa wakaas xaqiiqdii hadda xaqiiqda garanaya ma liibaan lagu liibaanay marka waxaas oo shaydaankaas halkaas taagan iyo wax la midka oo maanta waddankii burburiyey waxa weeye dowlad baa la sheeganaya dadka waxa weeye waxaas run u malaynayaan laakiinse waxtar ma laha dowlad waxay dowlad tahay markii dadkooda wax tari karto haddii dadkooda wax tari karin been iyo khuraafaad baa meesha lala taagan yahay marka waxaas dowlad lagu sheegayo oo halkaas la gaardinayo oo turbaanka la tumanayo nimankaas jeegada raadsanaya keliya baa faa'iido ku qaba dad kale faa'iido kuma qabaan laakiinse dhibka jirta waxa weeye dadkii waxaas uma jeedaan dadka waxa weeye caqligii baa laga dhaqay been iyo khuraafaad baa maskaxdoodii dhan looga tirtiray marka ogtiin waddanka Soomaaliya dowlad la'aan baa ka jirta 40 sano marka dad badan baa waxbaran oo magacooda xitaa qori karin marka dadka waxa weeye haddii san waxbaran waxa ma haystaan wax ay ku kala garan karaan wax khalada iyo wax sax ah haddana nimankan oo ma liibaano lagu liibaana inta u jeedaan intaas waxa u sii dheer balwood bay leeyihiin marka qaarkood waxa weeye khamriga cabaan khamrigan oo Itoobiya loo keeno bay cabaan marka xerooyinka ku jiraan dhalooyinkan oo kala hordaas qaarkood waxa weeye jaad bay cunaan waxa weeye shilin walba helaan waxa weeye oo jaadkaas lagu cunaa qaarna waa dhibaato arrin mar dhow kusoo korto waddanka waxa weeye qaarkoodna waxa weeye waxay cunaan kiniinigan tramadolka la dhaho kiniinigan waa opioid wey waxaa loogu talagalay dadka xanuunka siyaadada hayso baa loogu talagalay marka qofkii kiniinigaas cunaa kama haray wuu dhimanayaa marka ma liibaano lagu liibaanay waxa weeye dhibaatadaas baa haysato laakiinse dhibka jirta waxa weeye dhibaatadan meel walba ka jirtaa ninka hadda inta uga jeedaan oo dhibaatada haysatay waxa weeye meel walba ka jirtaa Somaliland keliya kuma eka laakiinse ma liibaane lagu liibaanay waxa weeye kuma waa aragnimo qaadanayaan waxaas marka nimanka u dagaalantamayaan kulligood waxa weeye waa milyaneer wey xoolaha oo dowladdii laga boobay waxa weeye baa lacagtii iyo wixii baa dibadda baa la geeyaa dadka looguma adeego kulligood shaydaankan halkaas ka qaylinaya wax la midka ah waxa weeye lacag baa u taalla dibadda guryo badan bay ku leeyihiin laakiinse waxa weeye waxaas xisaabtan in lala xisaabto nimanka soo la diiday qabayaal darteed marka ma liibaano lagu liibaanay waxa weeye halkaas buu ku baaba'aya